حاجة والدي كورة يا والدي كسر ولا سكعليني يا هري وبع هري وكا تليه إذا كوت يسوونه وكالك على الوجينية أو يسوونه سيدو كله ودجالك قيب كي هي فرنت هراء دجالك قيب كي هي ودجالهم يعني حبض ماي وأوجد ماي هلاك بكتجن لغة سوق الجيران هلاك ما تلبى تجنا لغة قال قرقة مش كده عيكنوا هلاك أنا إن والله سيد حلي جهارة الصبح ده هراء إن حبض ويفيفتو إسكو سعة الأكساد ألو ها حاجات جبتها حاجات صوتك مصور يا سان صوتك مصور يا سان اوكي حافظ هذه جيس كاميرا حاجه كلا كسو المقاله دنك كره قوس بو سوقتا حبدو والله yaaba gudaha u galay ilaahay hadeerta wax dhaawac iyo khasaaro ilaahay hadeerta gudaha loo galay la sheegi karo ma jirin laakiin saxbadu banaanka la sheegaysanaya waa ka qoragaas bi xabad ka soo dhacay halka taagan ma waxa samaysan ma xagga degantiin xagga ka wareega adii kale xagga xabadu way ka socotaa halkan askar baa ku jirta xagga ka wareega ماي ودنا كدس اللغة كدس هلاقين أضو عرورت هذا هدلين وأكوا حبض ماشي لقى جرو عرورت هذا هلاقين هلقى كلبه عرورت هذا هلا كساحب دجال بكجرا أنا اللي يقص علي حاجة عرورت هذا كلبه عرورت هذا هلاقين بس تذكر الشعب كا يقص ما تضوي يبين آدي أدوى ما حاجة كلا عرورت هذا ما حاجة كده ما إن شاء الله صاحب سيد خير بنقول الساعة ها واحد جوا رضوان ما هي ما مسوق لك ارتجاري ما مسوق لك روح سميسا أبيك واحد سمادا إسكول شافعي بريمريجا يمو إن واحد ساك iyadoo ay xarsaasta u socoto goosgoos nimanka ciidamada BSF iyaguna sidoo kale waxay ku jiraan daafac aad uga adag kii ka horeeyay xarsaastuna waxay u socotaa goosgoos walow ay isla aaday dhanka qorax ka soo baxa magaalada Boosaaso iyagoo ciidanka mararka ka raranaysa saab kararo adiga halkaas nimanka taagan gaariga halka taagan xabadiisa xaqana soo aadaysa xabadiisa gaariga halka taagan xabadiisa xaqana maanta la soo dhaacaysa difaac ku jira حد مدة شعبك كنوا الحافظ رضوان إني يجو أي قح يبقى تبغى وقف الليل أنتي قاعدة من تلوه هاي بل سأي هذا أودع عيسو سيدك سكدو سيدك وري وحرجيني أنا بل اسكت أنا أدور كيكارو ماشى وبدني حبضو كسعته أي هذا يسوق تقشو لكن ولو حبضو أي هوس أودع عيسو سيده هراء كدو أنتي إن فضلاً بيجك جارسية دتك كلته وشر جراية سي أي لو جارسية أصحابك كلته حالة هذا أذك يضو أي إن هب وين ما أنت اللي سكوا أذك سنيو تاس أو ما أنت اللي إن أو إذا ماذا دولة يكون BSF فوضى استران إن ولو حلو هراء أن يديسوا قد بي إن فيديو كان كيوري أو ها إن لبد هالجوري لبد يصدق عليك كجيران إن لبد إذا دولة BSF دولة أنتوا بقى ساكا بس لما فيلن إن فوضى اللي يصدر دونه لكن سوي دعدي إن سبب بدن أو لده إن لو سوى رمى لحقال أي شيء يعني أوها إن أيضا BSF أي ويان وحسابه هي واحد دقائق أسوقلا تاس أو سببتي إن أي سميان إن دفاع عن الدجال أي سميان
walow sabab arrimo badan oo isbiirbiirsaday ay sheegayaan in ku talagalku uu ahaa in ay xabaddu dhan uun mar uun bilaabato si ay loo kala dhammaado walow dee bulshooyinka Boosaaso ku nool ay aad iyo aad u dhiban yihiin iyaguna aasan dad rafaad iyo qax ka gaaraya aysan ahayn waxaa aad iyo aad difaaca u soo adkeynaya una soo badanaya ciidamada BSF oo iyaguna sidoo kale taxabadaha waaweyn iyaguna sidoo kale adeegsanaya waxaa aad u kala ordaya shacabka ku nool xaafadda Ridwaan maatada iyo dhallaanka korkooda lagu dagaalamaya ay yihiin kuwa dhiban maamooyinka iyo dhammaan dadka ooyaya iyo maamada ordaysa intaba waxaa ugu filan dhibaato intaas iyadana ma ahan mid la joojin karo walow madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu go'aan ku qaatay go'aankii u dambeeyay oo ahaa maanta in waxaad moodaa ciidamadu ay kala duwanaayeen kuwa dawladda ciidamo kala afduubasho badan oo dhacday waxay sababtay in maanta fooda la isdaro ciidamada dawladda iyaga oo aan midna u aabayeelayn ayay waxay dhammaan godood ku sameynayeen ciidamada dawladda halo he saaxib waxaan joogaa Ridwaan baan joogaa shishay koolka waa ku soo wacayaa live baan ku jiraa waxaad moodaa in shacabka maatada masaakiinta ah hooyada ilmaheedii la ordaysa halkaas hadba dacalu la ordaysa meelay u qaxda garan la baa ugu daran sidoo kale waxa dheer in hooyooyinka ilmahoodii ku gadoodsan yihiin xaafadahaas ay la ilmeynayaan inay ubadkooda u soo saaraan ama banaanka ugu soo saarsadaan walow hooyooyin badan ay jireen inay shaqooyin ku jireen suuqa jireen saaka balse saaka ay hadeertan rasaasta dhawaqa ay maqleen kala orodka ay suuqa ka soo yaaceen halo ha alxamdulillah maama soomar maamo soomar sug ma ku soo wacaya maama dhaafin sug marka wax sameysaa maamo wax sameysaa xagga ingeli gaari hadalka wanaajis soo socda xagga ingeli xagga ka soo gal maamo may gaari wanaajis waa kana kuwa ciidanka wax sameysaa xagga gal xagga ka istaag inakan xagga soo istaag bis ما حاجة بس استاك يا استاك بس هسلمي هلو تشيشيبا ما وعدني ما ما هلكا قلا هلكا شو ادرك بس ان xabadu sida xoogeeda u socotaa waliba waxay ka socotaa dhanka shishe oo magaalada dhanka magaalada mama caruurta xay ku jiraan ilaa xagee hasa maamooyinka xaafadda Ridwaan waliba dhanka gudaha ah waxaad u maleysaa in maamooyinku caruurteeda ay kaga xaniban yihiin dhanka gudaha ah Ridwaan ay ka dhacayso waliba meesha xabaddu ay ka dhacayso waxaan rajaynayaa in si degdeg ah xaaladan ka taagan magaalada ay looga qabto wax walow maamooyinkan caruurtoodu ka dhiban yihiin ay yaala ay ka banaanka ka joogaan wad maqleysaan hooyo masaakiina oo ilmaheedii saaka u soo doontay saaqad ayaa saaka iyadii hadeertan iyadoo ordaysa suuqii meel uga timaadala xabadda waxaad u maleysaa dhanka magaalada in la isla aaday xabadda dhanka magaalada ka dhacayso ay sidoo hore ka duwan tahay waxaa moodaa in dhanka magaalada xabadda la isla aaday ay dhanka magaalada xabadda iskula dareertay iyo dhanka qorax ka soo dhanka qorax ka soo baxana waxa ka dhacaya qoriga noociisa waaweyn ba ka dhacaya ciidamada BSF iyaguna sidoo kale tadaafacooda u xiran yahay oo ay xabaddu waxay u socotaa si aan kala joogsi lahayn walow ciidamada ay hadaaye cabaaro ka hor markii ay dhahayeen waxa lagu kala jiraa daafaca alo ha halo fadlan page-ka share garay gaarsii asxaabta inteeda kale xiisada magaalada maanta ka soo cusboonaatay xiisada magaalada Boosaaso dadku waa maato waa wada dhamaan waa la wada cararaya axbaa taagan xaaladan ka taagan magaalada ay looga qabto wax walow maamooyinkan caruurtoodu ka dhiban yihiin ay yaala ay ka banaanka ka joogaan
wad maqlaysaan hooyo masaakiina oo ilmaheedii saaka u soo adeeg u soo doontay saaqad ayaa saaka iyadii hadartii iyadoo ordaysa suuqii meel uga timaadala xabadda waxaad u malaysaa dhanka magaalada in la isla aaday xabadda dhanka magaalada ka dhacayso ay sidoo hore ka duwan tahay waxa moodaa in dhanka magaalada xabadda la isla aaday ay dhanka magaalada xabadda iskula darartay iyo dhanka qorax ka soo dhanka qorax ka soo baxana waxa ka dhacaya qoriga noociisa waaweyn ba ka dhacaya ciidamada BSF iyaguna sidoo kale daaficooda u xiran yahay oo ay xabaddu waxay u socotaa si aan kala joogsi lahayn walow ciidamada ay hadaaye cabaaro ka hor markii ay dhahayeen waxa lagu kala jiraa daafaca alo halo fadlan page-ka share garay gaarsii asxaabta inteeda kale xiisada magaalada maanta ka soo cusboonaatay xiisada magaalada Boosaaso dadku waa maato waa wada dhamaan waa la wada cararaya qaxba taagan waxaad moodaa in xabaddu ay goos ilaa hadda ay u dhacayso ay ka dagaalamayaan ciidamada dawladda dhanka kale tan difaac ay ku jiraan ciidamada BSF iyadoo oo ay rasaastu u dhacayso goos oo laakiinse uu target ku yahay in xerada BSF ay ciidamadu target garaysanayaan ama weerarkoodu yahay waxaad moodaa in dagaalka lagu xoojinayo ama weerarku uu yahay mid aad u adag halo beedkeyga waxaad moodaa in xiisada dagaalada saaka ka soo cusboonaatay mid la filayay ay ahayd walow ay dagaalku uu socdo goos u socdo xabadda dhacaysana ay tahay hubka noociisa waaweyn baa saaka la isku adeegsanayaa ciidamada dawladuna iyaguna sidoo kale waxay go'doomiyeen ciidamada BSF iyagoo oo ay dhammaan hubka noociisa kala duwan u adeegsanayaan si meesha looga soo saari lahaa ama xerada la isaga soo saari lahaa iyaga ciidamada BSF-na waad u jeedaan oo difaac bay iyaguna sidoo kale ku jiraan waxa kale sidoo kale iyagana barashar saarayo xabadda ku wada ciidamada dawladda taasi oo ay shacabweynaha ku nool xaafadda Ridwaan aysan ilaa iyo hadda qaxin ay ugu jiraan khatar in xaaladooda dagaal ay si ahaato mid adag walow shacabku saaka xilli horeba cabsi ay ka qabeen walow dadka qaarna ay ku xaniban yihiin ardayda iyo dadka xaafadahoodii shacabka walow maatadu ay u daran tahayba saaka in guryahoodii weerarka uu ka socdo iyadoo oo xabaddu ay u dhacayso sida nooca maaragtay darandooriga u dhaca qoryaha waaweyn hubka waaweyn ba ka socda marka waa kan weli waxaan joognaa aagga hore ee dagaalka xabadduna waxay u socotaa dee si xooga ay ciidamadu difaaca ay ugu jiraan ciidamada dawladda taas oo dhalin karta in maaragtay cabsi badan ay ka abuurto shacabka ku nool xaafadda shacabka ku nool xaafadda Ridwaan ayaa iyaguna sidoo kale ku dhiban aagga waa marka maamooyin masaakiina waa ku dhiban oo meesha dadkii maatooyinka haabaa ku dhammaanaya walow wax kale aysan jirin laakiinse shacabku maaragtay ay ku xanibnaayeen saaka lagu xanibay aysan dawladdu u ogolaan inay shacab ka soo baxaan xaafadda ay tahay hubka maaragtay waaweynka u dhaca kolley inaad maqlaysaan waa garan karaa xabadduna dee goos bay u dhacaysaa marka wax kasta waa laga filan karaa بيتك رضوان باجوغا بيتك حبدا ayaa iyaduna sidoo kale xoog u dhacaysa sidoo رضوان باجوغا رضوان بيتك daqiiqada saax telefoonka way dhibayaa haye حبدو يدو وسائد دولة عيسى وري حافظ ماذا تا أجمع قال أدم نكان كنا فيه نكان ويل يربى يسقون سوي نكان بوانا كنا فينا بقنا ويل يربى يسقون كل بان أجا أو يسقون سيدو كنتو حافظوا هذه لا حافظ ماذا بو مركا قولي يا قل مركا أروح حافظ قل ها أدغنيو عليكم السلام ساعد وقرن ما يلا كيس واحد جوجا دفاع ماشي هوران جوجا هورا ماشي حافظ ذاك تدي واكا وقصوع يا ولو حبدوا أي حجر وبالعوتي
sidii hoos u bilaabatay ay dhanka waxaa la isla aaday xerad xaafadda ma gasho xaafadda galbow xaafadda gal xabaddu way saaid loo dhacaysa xaafadda iska galbow xaafadda iska gal gargax xoog ku gargar dhagax ku gargarac dhagax niyo ilmaha yaryarka ah oo shacabka ku nool xaafadda ilmaha yaryarka xaafaddooda ka fureen si ay u gabaad uga samaystaan ma xabaddu weli waa socotaa xabaddu weli waa socotaa xabaddu sidii hore way ka duwan tahay oo waxay u dhacaysaa si ka duwan sidii hore waliba xoog ay u socoto waliba waxa la isla aaday dhanka iyo dhanka qorax ka soo baxa xabadda badankeed la isla aaday walow ay dhanka maaragtay suwiitan xabadda xoog uga dhacayso marka shacabka ku nool magaalada Boosaaso maanta cabsida soo wajahday waa mid aad iyo aad uga duwan tii kuwii hore waa ka xubka nooca waaweyn baa dhacay gudaha la isugu galay ilaa iyo hadda ma cadda ciidamada BSF iyaguna sidoo kale difaac bay ku jiraan oo halkaas iyaguna ka soo jawaabayaan xabadda hubka waaweyn walow shacabkii xaafadda Ridwaan ay ku dulman yihiin welina ay ku dhiban yihiin ayna ku jiraan guryahoodii aysan ka soo bixin ayna yihiin kuwa aad iyo aad uga walwal qaba dhibka socday xabadaha dhacayo korkoodana lagu dagaalamayo in laga bedela ama aaga xaaladda ciidamada dagaal ay dawladda ay soo gashay war isku soo bixin aaga dhawa xiriir cidna ma joogto waa ka qoriga weyn ee saaka aaga xabadaha ka ridayay isna waa kala kanu maraya marka sidoo kale حاجة والدي كوريا يا الذي كسر ولا سكعليني يا هري وبع هري وكا تليه إذا كوت يسوقنا وكالك على لوجينيا أو يسوقنا سيدو كله ودجالك قيب كي هي فرنت هري دجالك قيب كي هي ودجالهم يعني ماي وأوجد ماي هلا كم كتجين لغة سوق الجيران هلا كان ما تلبى تجنا لغة قال قرقة مش كده عيكانوا هلا كانت إن والله سيد حلي جهارة الصبح ظهر إن حبض ويفيفتو إسكو سعة الأكساد ألو حاجات جبتها حاجات صدق مصور يا سان صدق مصور يا سان اوكي حافظ هذه جيس كاميرا حاجه كلا كسو المقاله دنك كره قوس بو سوتا حبدو والله yaaba gudaha u galay ilaahay hadeerta wax dhaawac iyo khasaaro ilaahay hadeerta gudaha loo galay la sheegi karo ma jirin laakiin saxbadu banaanka la sheegay adeegsanaya waa ka qorigaas bi xabad ka soo dhacay halka taagan ma waxa samaysan ma xagga degantiin xagga ka wareega adii kale xagga xabadu ay ka socotaa halkan askar baa ku jirta xagga ka wareega ماي ودنا كدس اللغة كدس هلاقين أدو عرورت هذا هدلين وكوا حبض ماشي لقى جرو عرورت هذا هلاقين هلقى كلبه عرورت هذا هلا كساحب دجال بكجرا أنا اللي يقص علي حق عرورت هذا كلبه عرورت هذا هلاقين بس dadka shacabka iyagu sidoo maatada way dhiban yihiin aad iyo aad waa ma xaqan kala dus caruurtada maxaa iga dhacay ما إن شاء الله صاحب سيد خير بنقول الساعة ها waxaan joogaa Ridwaan
ما هي ما سو gali karta gaari aaga ma soo gali kar wax sameeysa adigu waxaad timaadaa iskool Shaafici birimariga imow waxaad saaka iyadoo ay xirsaasta u socoto goosgoos nimanka ciidamada BSF iyaguna sidoo kale waxay ku jiraan daafac aad uga adag ka horeeyay xirsaastuna waxay u socotaa goosgoos walow ay isla aaday dhanka qorax ka soo baxa magaalada Boosaaso iyagoo ciidanka mararka ka raranaysa saacad kararo adiga halkaas nimanka taagan gaariga halka taagan xabadiisa xaqana soo aadaysa xabadiisa gaariga halka taagan xabadiisa xaqana maanta la soo dhacaysa difaac ku jira waxad moodaa shacabka ku nool xaafadda Ridwaan inay iyagu ay qax iyo dhibaataba ugu filnayd intii go'doominta lagu hayay balse ay hadda u dhacayso sidii si ka duwan sidii ka horeeyay waxaan rajaynayaa inaan bal isku dayo inaan u duurki karo meesha ugu badan ee xabaddu ka socoto ay hadday ii suurto gasho laakiin walaw xabaddu ay hoos u dhacayso sidii hore ay ka duwan tahay fadlan page-ka gaarsiiya dadka kaleeto u share gareeya si ay loo gaarsiiyo asxaabta kaleeto xaalad u adag iyadoo ay hub waaweyn maanta la isku adeegsanayo taas oo maanta dhalisay in ciidamada dawladda iyo kuwa BSF ay fooda istaraan walaw xilli hore aan idin soo gudbiyay fiidiyowgi kankii ka horeeyay oo ahaa in hal guri labadiisa dacal ay kaga jiraan labada ciidan dawladda iyo BSF iyo dawladda intuba saaka balse lama filin in fooda la isdari doono laakiin way dhacday sababo badan oo la dhahay lagu soo waramayay la xogaal ay sheegayeen oo ahaa in ciidanka BSF ay waayeen wax saad ah iyo wax dhaqaaq oo u soo gala taas oo sababtay in ay sameeyaan difaac ama dagaal ay sameeyaan walaw sabab arrimo badan oo isbiirbiirsaday ay sheegayaan in ku talagalku uu ahaa in ay xabadu dhan mar uu bilaabato si ay loo kala dhamaado walaw bulshooyinka Boosaaso ku nool ay aad iyo aad u dhiban yihiin iyaguna aasan dad rafaad iyo qax ka gaaraya aysan ahayn waxa aad iyo aad difaac u soo adkeynaya una soo badanaya ciidamada BSF oo iyaguna sidoo kale taxabadaha waaweyn iyaguna sidoo kale adeegsanaya waxa aad u kala ordaya shacabka ku nool xaafadda Ridwaan maatada iyo dhalaanka korkooda lagu dagaalamaya ay yihiin kuwa dhiban maamooyinka iyo dhammaan dadka ooyaya iyo maamada ordaysa intaba waxa ugu filan dhibaato intaas